ودني maxay kula tahay halka Soomaaliya afar inu safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay no waranagu horanu goone aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaay waradna maxay kula tahay dawlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe federaal ina adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an warbal dadkan eega oo xagee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane oo duceeyay Allah leedahay arjamaacoy madhantiin muuskugu timideen maanta mawliid waaye nimcatul fashuuq 12 geel 12 lo'aad 12 ari maxaa ka ide kaaliba ari aan ku dhihi karaa maskuur xasantii maanta inaan nimcaysano shiiqow maanta in xoolo la qala maahan in la soomaa sunnaa arhoy bidca warkeedu laguma jire jamaacoy afki ii buuxiya arshiiqow maanta arshiiqow maanta لولا ما أنت ود معاه تمر ما أرلولا ما أنت ود معاه تمر ما بندانجو صار عانو نمعة الفشوق وترتيبها هلا قاعدين ليهي ولا دا الله دغيستا ويلكيغا ويلكيسا البوك اغمد هذا انغنا اله بان بريه ايغا اغمو موقدا war hilib jecel ama bahal baa ninku wala sheegaasa walaagii sheegaasa nama sheenasa mana sheena dadonta gasiidu war ma haysaane gobolka mudug aaga xarar dheere ilmihii iyo irfiidkii dadka ku dhibay xalay cirka looga soo dhacay hilbaha daadsanade dawaco weer wixii bahal joogay habeenadan waa dhergayaan war hus hoob la galalaw saasan ingiriye ma sagaal geel iyo sagaal loo antinka sheegay day walin sheego ay niyow marka waxaan leenahay farxaana walkii noo fadhiyay ciidaha meeshooda oodkiya nafteenaba kuwii caaqiba u diiday amrigood nimankii miyiga nagu canshuurayay alcabdiyo kuwii naga qabsaday caada xarar dheere cirka looga soo dhacay sidii caata weer helay carunkoodu wuxuu daadsan yahay maanta cadaleeye cadadkooda soo fiiri waad la cajabaysaa shar gudban shaydaan xijaaban horay baa loo yiri dilaayo dil baa ku dambeeya marka waxaan leeyahay markii diruru horaba dirurare ma weydeed hogaa shala ku daganteen daraatana ku siranteen maanta inaad ka durugtaan ma dareemi weydeen hadba dama lidin dhigan nacabkiinu soo tumayna dalaqtinaadaan badabeecadiina warnimada ilaahay dilaa dhinta iska dil ma ahan qofina maanta xildhibaan daahir amiin jeesow dil baa loo qorsheeyey laakiin alla ma qadarino waa ka badbaadi waqtigiisu suganaya qof walbaaba qof waqtigiisa ka hormarayaana ma jiro oo nimanyow dilka maxafiisyada bilowaadmiga laga qorsheeyaa ilaahay agtiisaan ku ogaayey war daahir amiin jeesow waxa uu yidhi qaraxa cadow ayaa soo qorsheeyey laakiin waa loo fududeeyey say rabeenna ma noqon raadiyo kulmiyan waxaan ka maqlaa gurigaaga markaa ka baxaysa labada dhinac iska fiiri baabuurkaagana intaadan fuul hoostiisa iska fiiri weliba salaamo naqsay ku dareen taxadar calaa nafsak miya war gabgabto badatay garaabada ay la aaminay waqtuhuma la jira inoo la daro hayti abwaandoodan wuxuu yiri heeraha la taaliyo ragga hawdka kula yaala dadka oo dhan hay sugu halaynkaasi waa hebel warnimayo in la aamino inaan la aaminin baa dhaanto war dadka kala fogeyninayo awal baa asrar wuxuu yiri walaalkayni waan u haystay maxwada ii fariistay oo xilligaasna ma jireen war jigjiga shirkii lagu xuseeyay sayid maxamed cabdullaah xasan idaa jaa oo ka hadlay wuxuu yiri sayidka marka la hadlay waa la soo weysa يا عرو والسيد كهدين لحصو سيد أحمد عبدي قدره أيانا نقول هرقيسة وحصينا ورنمايا وعلى دوح هذا قريان اللي ورنجل وهو يري قمري ما عبسين محمد والسيدة تنرار قايلة حدي عن مركي هراق الدعاي قافي دباديده أنا سيد كينوية وحن وقنعي وهي عدي إنو شبابها قبل على جامعة أبيل وعيد المسلمين كان كقول دقين مؤمن ما قاسة قال محستك ودورة مكان سطع دامه معناheedu waa iska cadiya saan maanta u naalo sheegan ninkaas war cali jaama wuxuu yirinayo turqiyadu tara markaas uu timirta cuurtaaye ma talyaanigaas ama hadiyadana waa yaabay war yaa xuska sheegaysaan sayidka abwaan xirsi dhuxma ka gabiye ama ha gabiyo ama ha qudbeeyo ee annaga shir shabaab lagu xusayo naguma matalo warnamayow geelle ama dheer dhamaatay gobojani sheegasan wala hatta teegan ashin sheegan dhagansada isan madawiile mandirina koonfur galbeed gobol galiley oo anaga diranay la haydan langili
ley lafta garan geek wal am binaan bahi sidii hata ka hor baa uuro mansuur lanka binaan bahi han hal am binaan baho muhima limanti am binaan bahano tanaga gaw lahaayeen anti binaanka la harogsi maylare wariya hadii isin shandagi ka dhaafo aytan madagiga darbiya ka dhigay waleeri marka may baaraasana anaga wadan usulanti gaanti teegiba ana socda lahaayeen ku daldala bay dhawjinay waataya war maanta war ma haysaane gudoomiye hore baarlamaanka jawaari baa ka degay baydhabo aad baa loo soo dhaweeyey boorar baa lagu soo dhaweeyey ay ku qoran tahay aw kay digil iyo mirifle wal ma laayna afka BL ko gobada laakiin reeda walka ka hadlayti aw kii digil iyo mirifle koy yeeran war miyay ka reebeen sideedlahayaga iyo sagaalahayagii adama aba ka jartoba war madaxweynihii hore ee xasan sheekh kismaayo kula sharciga golihii wasiirada ee jubbaland iyo madaxweyne alsayid axmed duxul marka waxaan la yaabanahay xasan sheekh waxa uu sheegay golaha wasiirada ee jubbaland war waddanku waa arradna madaxweynaha xilliga ka degaa kuma noolaa jirin arrintaasuu camiray madaxweynihii hore waddankuu ka dhex shaqaynaya war allaha u naxariistee madaxweynihii hore aadan cabdulla cismaan aadan cadde janna aluu beer ka fashay markuu xilka ka degaye wasiirre iyo madax maamul goboleed lama shiri jirin waraarna madaxweynihii hore cabdiqaadir salaad xasan qaahiruu iska fadhiyaa siyaasaddana ma soo dhex galo soomaalidana wuu u duceeyaa markuu hadlayaba war sheekh shariif inta doorashada la gaarayo siyaasadda faraha lama galo warniyo war ma haysaane madaxweynegii hore siiraanyo imika uu iska fadhiyaa uu iska tasbiixsada oo masaajidka safal awalku kaga jira warnimiya usan walba siinka galdan madaxweyne xasan sheekh markuu isbahowjiya dhowaay maylaaye qabiye ninkeedii baa dhammaystira qabiye ninkeeda war qabiye dhammaystira ka jiran miyaw war madaxweynihii cadaado axmed baasto shalay asoo buugaag watuu muqdisho soo gaaray madaxtooyada aanan liga wacuu yidhi anuu nimayo waxaan la yaabanahay madaxtooyada baasta laga wacay xaafna taleefanadii looga qaban diiday xaaf taleefon lagama qabanayo ilaa nabadii nolol waa ka adeecay warnimada waxaa la yidhi qaatumadu inay qaali tahay qaafil baan garan qar bay kala dhacdaa xaajadu qaabi leeyahay qayr iyo wanaag buu halaag u ictiqaadaa qalad ruuxu kama suuli karo quus markuu yahay war inoo madaxweynagii quursitan reer galmudug atiina malsin liyaabow war waa runoo qalad laguma saxo horta qofka quusta oo la sheegaya waayo languursidii lan isgarhiiw war adeero qaranka Soomaaliland ictilaaf kama quusan haddii ay Itoobiya naga xeelatay albaabada imaaraadka noo furan carruurta imka caanan loo siiya war guddiga maaliyadda ee baarlamaanka waxay wasiirka maaliyadda ku eedeeyeen wax isdabamarin iyo wax iska daba wareejis baylana wuxuu anigu beri baan ka ahay warkaas war aaway hanti dhowrkii guud iyo xeerilaaliyihii miyaanay ka hadlin hala soo xiro waa kuwii dhihi jiray war waaweynka ma xiri karaan ee looma ooyaankay ku meeraystaan war ma miskiina miska la fuulo lamiya arrintu war diidan ima diidnaba diidow hartigiin wadheega jari haddii wawiinka in adaala warqadiyo akriyi doono ley adaala warqadaha waaweynka ma akri karo adaala yaa u baahan daahirkii la akrinaye war ma haysiin adduunkana lama socotiin maanta waa maalinta carruurta adduunka shalayna waxay ahayd maalinta masquulaha adduunka war tangeega oo maalintii aruurtay aanu dhaha gordaan ilmooleena laakiin tii shaylankii masquul goda jiray gorday waryaa warnimayo xalayna habeenkii duqaynta adduunkay ahayd war aawa maalintii jacaylka iyo maalintii faradhaqa oo la sheegi jiray wiilka jaagada xiirano ma ilooba arrintaas war adeer waad ka dhacsan tahay maanta waa maalintii mawliidka war adeer maanta waa maalintii dhafarka iyo qaadirada bundaango saar caano waryaa hilibkiisii waryaa أسين